haddii aad rabto inaad noqoto hacker isla markaana aad rabto inaad imika bilowdo barashada computer science-ka waxaad ka bilowdaa course loo yaqaan A+. A+ka waxaad ku baran doontaa waxyaabo badan oo ay kamid tahay in computerku uu ka kooban yahay laba waxyaabood oo kala ah hardware iyo software. hardware-ku waa qolfoofta computerka, software-kuna waa ruuxda computerka sida operating system-ka loo yaqaan Windows-ka oo kale. hardware-ka waxyaabaha ugu muhiimsan aad ku baran doonto waxaa kamid ah motherboard-ka iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay sida RAM-ta iyo sida u shaqeyso iyo CPU-da ama maskaxda computerka sida u shaqeyso. A+ku waa albaabka ugu horeeya ee laga soo galo barashada computer science-ka. marka aad dhameyso kadib waxaad baran kartaa computer programming ama computer networking. computer programming-ku waa cilmi aad u ballaaran oo aad ka diyaarin karto bachelor degree waxaana noqon doontaa software engineer. sidaas la mid ah computer networking-ka isna waa cilmi aad u ballaaran waxaad ka diyaarin kartaa bachelor degree waxaana noqon doontaa network engineer. maadaama marka ujeedadeena ay tahay in aan noqono hacker waxaan baran doonaa computer networking-ka. la soco Part 2 balse inta ka horeysa muuqaalka like saar adreskana ii taabo mahadsan.